Asalaamu calaykum. Dadka qaar ayaa isku haysta inay maskax badan yihiin, halka dadka qaarna isku haystaan inaanay ku jirin dadka maskaxda badan. Labada arrimoodba waxay u baahan tahay in la hubiyo. Waxaase meesha ku jirta qof walba oo dadka ka mid ah in uu leeyahay maskax u gaar ah kaga soocan yahay dadka kale, sida uu aaminsan yahay Professor Herbert Gardner markuu ka hadlayay kala duwanaanshaha maskaxda dadka. Professor Herbert Gardner oo ugu magac daray aragtidiisa Multiple Intelligence Theory wuxuu ku sheegay in dadka badanaa ay leeyihiin maskax kala duwan oo ku kala baahsan ama ay ku kala xiriiraan meelo ay ka mid yihiin hadalka, maqalka, muyuusigga, ciyaaraha, iyo wixii la mid ah. Sidoo kalena ay dabeecadahaasi ka soo baxaan nolosha caadiga. Waxaaba laga yaabaa in aad aragto qof ku fiican ciyaaraha oo aan ku fiicnayn waxyaabaha kale. Haddaba waxaa la isweydiin karaa intee in le'eg ayaynu leenahay dareen caatifadeed, ama siduu u bixiyay aqoonyahan Herbert Gardner, emotional intelligence, oo ah dareen culimada psychology-ga daraaseeyeen 20-kii sano u dambeeyay, kaas oo inta badan lagu tilmaamay inay adeegsadaan dadka nolosha guulaha ka gaaray ama raadka kaga tagay taariikhda. Haddaba halkan ayay ka dhalanaysaa su'aasha mawduuca inoogu qoran ee ah: immisa sano jir ayaad tahay? Da'daada intee doonto ha ahaato, waxa aad ogaataa inay kala duwan yihiin dareenka uu qofku xambaarsan yahay iyo da'da uu jiro. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in la helo qof da'diisa ama tirsiga sanadaha uu noolaa ay tahay 20 sano, laakiin dareenka uu xambaarsan yahay gaarayo 70 sano, amaba qof 40 tirsaday oo dareenkiisu yahay 16 jir. Dadka xirfadahoodu waxay u horumariyaan kolba intay waayo-aragnimo ay leeyihiin, caqligooduna wuxuu ku horumaraa siday aqoonta u raadsadaan. Laakiin waxaa marag madoonto ah oo cilmi nafsigu ku jawaabay inaanay labadaasiba miro dhal noqonaynin haddii aanu qofku lahayn dareen damqasho badan ama caadifad xambaarsan. Sababtoo ah waxaa ka dhalan kara arrimaha soo socda. Wuxuu kuu sheegayaa dareenkaas inaad hagaajiso falcelintaada oo dhan, oo aad ka dheeraato inay dadnimadaada cid kale gacanta ku dhigto, rowdo dhammaan baahiyaha waxbarashada keena iyo wixii la mid ah. Ha isku arkin inaad tahay qof aan ku habboonayn meesha uu joogo. Ku kalsoonow naftaada, aqoontaada, kadibna si dhiiran oo aan leexleexad lahayn u fuli go'aannadaada. Dareenkani wuxuu leeyahay naftaada dhiirigeli oo u sheeg haddii ay wax weyn xaqiijiso inay abaalmarin helayso oo aad adigu siinayso. Si xoog ula falgal dadka, dareen waxyaabaha ay dareensan yihiin. Ha ku dhiiran in aad afka iyo adinba wax ku yeelayso. Isku day in aad gacanta qaban karto iyo in kale. Haddii ay kuu suurtagali weydana, la wadaag dareenkaaga murugaysan. Baro sida dadka loola xiriiro. Isku day in aadan qofna isdiidin. Ku dadaal dhoola caddeynta, farxadda, sheeko wadaagga iyo tixgelinta dadka kale. Isku arag in aad tahay qof lagu dayan karo, kana dheeraaw xumaanta in aad samayso, si aanay sharaftaada hoos u dhac ugu keenin. Habee dareenkaaga oo isku dabarid, ku faraxsanow kadibna dadka la wadaag. Joogtay waxa aad dadka u qabanayso, Ilaahayna ku xirnow.